بسم الله وحن ربا هلكن إن كسو قد بيفرين بشارة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وقول بشاري dadka cudurrada faafaya sida cudurkan hadda socdo oo koronaha aan leenahay iyo wixii la midka u dhinto iyo daacuunka inuu ugu bishaareeyay inay leeyihiin ajr shahiid bishaaradaas waxaan u xasuusinaynaa inaan ogaano in qadarka noocyo badan oo asbaabta dhimashada noocyo badan inay leedahay qofkii noocan tiisi ilaahay ka dhigana inuu ajr xisaabsado sabro laga rabaa sidoo nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam nabigu wuxuu yiri at-ta'un rijzun وعذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم وحول الطاعون وعذاب لغوصة صلى بني إسرائيل ومديه يكون ريوان فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه قل إنه كدع هداد مغشان عذر فافا يصف مرينا هقلنا وإذا وقع بأرض وأنتم بها هديء قل كدع إذنكم جوغانا فلا تخرجوا فرارا منه هكبحنا idinkoo cudurka ka caranayo cudurka ka cabsanayo maxaa yeelay qofka muslimka ma aha qof dhimashadu ay khawf iyo ku hayso waa qof ilaahay yaqaan oo rasuulkiisa yaqaan bal fadaa'isha cudurka naftiisa ku jirto qofka mu'mina ee ku dhinto oo cudurkan ajishiisa ku gasho nabigu wuxuu sheegay sallallahu alayhi wasallam inuu shahiid yahay xadiis kale oo bukhari warinayo wuxuu ku yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam daacuunka markuu ka hadlay عذاب يبعثه الله على من يشاء عقاب وايو عدو دون الله كسلده وأن الله جعله رحمة للمؤمنين إلهينا وحكدق عذر كاس رحمتك ومؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده سابرا محتسبا مجر قف دل أجوغه وكدع الداعون صبره إلهينا السبر كيس أجر وغرجيا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إنيس كدعين إلا إلهي أقدر ما هنا الرالي كن قدرك إلهي مجره إلا كان له مثل أجر الشهيد إلا هدوجر الروح وحو يشاء وطير ربك وقبطه أجرك شهيدك أوكلا شهادة ودرجة وين لهيري كريم شهيد في الآخرة على هذا دمشق النوع عسى سيداس درادت وحنقول بالشارعين dadkii ahalkoodii iyo walaalahood iyo qaraabadood iyo ummadaha muslimiinta ay ku dhimanay guud ahaanba qofka uga dhinto inay ku sabraan una ajr xisaabsadaan in qofkii uu ilaahay tiisa ka dhigo sabab uga dhigo wallahu musabbibul asbab inuu ku sabro ajr shahiidna loo rajeeyo waxaana leenahay haday musiibo dhacdo dadka muslimiinta sabra laga rabaa النبي صلى الله سبحانه وتعالى وحوري وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وحوري كوده هذه مصيبة على الربا إنا لله وإنا إليه راجعون سلاس كوده الله نقدره صبرنا الله نوافجيه ومصائب تدعي سنة الدعاء هي الطهارة هي استغفارته هي عباداتك كلا دوان أن كد ذلك وجزاكم الله خيرا